ilaa waa mahad iskale marka xigta waxaan hambaliyo leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan si gaar ah hambaliyo ugu dirayaa ummadda Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah ee maalintan ku astaysan 15 May oo ah maalintii dadabada loo taagay 77 sano ka hor dhalinyaradii xisbigii kacaankii ururkii maskaxdii caqligii fikirkii mideeyay 13 dhalinyaro oo lagu magacaabi jiray SYL waxay ahayd maalin ummad Soomaaliyeed qaali ku ah maalin waxay ahayd shucuubta ummad Soomaaliyeed laga xoreeyay cadawga gumeystay waxaana ka xoreeyay 13 dhalinyaro ah oo runtii u soo hooyay magaca sharafta iyo karaamada oo wali inaan 77 sano kadib la xusuusnaano sababteeda keensaday Ilaahay ha wada naxariisto runtii maalmo qiimo badan bay nagu leeyihiin taariikhdooda inaan xusuusnaano waxa keen waxa iyagu ay dhigteen oo ay noo dhigteen laakiin su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay inaan wali 77 sano ka hor gumeystii iyo cadawgii iyo xoreyntii dadka Soomaaliyeed lagu sameeyay aan wali xusuusnaano waxay nagu tahay iyadana marka sida kale loo fili inaan wali waxba soo kordhin anaga dhalinyaro oo haysan wax haysan dhalinyaradaas haysan adduunyada soo hormartay tiknoolajiyad wax walba casri noqday horumar awood quwad karti dadnimo inta dheer iyo aqoon ina haddana wali wax bedeli kari laanahay dhalinyarada Soomaaliyeed waa su'aal isweydiin mudan maxayna haysta maxay naga hortaagan inaan qalbiyadeena mideyno maadaama 13 dhalinyaro ay maskaxdooda